bismillahi raxmaani raxiim maanta taariikhdu tahay 12 Diseembar 2020 ujeedo magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber 44 kuna saabsan magacaabis golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigren markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 12 Diseembar wuxuu madaxweynaha Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigren u magacaabay xubnahan cusub golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Ibrahim Aadan Cali Najax wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya علي محمد علي وزير وزارة دجاجها إيجادية كبدة دولة جولات كوفر قلب الصومالية عمر أحمد آدن وزير وزارة دستور كدولة جولات كوفر قلب الصومالية حيركم وحود خنقل نخن دونا مركو وصيح محمد أحمدها دولة جولات كوفر قلب الصومالية مدن عبد العزيز حسن محمد لفظ ونصيحي وبالله توفيق